maalin kasta inuu dadkayga laayo 3 bilood gudaheed waxaa naga dhintay 120 qof daraado u dambaysa waxaana naga qaaday inta 2 nin la dilay ninna la dhaawacay ba 150 geela iyo hal madaxoo la qaaday dawladda federaalkuna si fiican iyay warkaysay oo u daawanaysay militariga Ethiopia si fiican bay u daawanayeen wax allaale waxay ka qabteen ma jiro dadkii markay isku dayeen inay waxoogii soo ritaan oo ay urursadeenna iyaga dib u soo celiyay waxa weeye midda kale waad ogtihiin magaalada Diridhabe dhibaatada ka socota habeen iyo dharaar baa la soo weeraraa xilliga la soo weerarana booliiska Diridhabe ayaa u heelaya dadka soo weerarayay toddobaadkiina dhaafay 9 dhalinyaro ayaa rasaas lagu furay oo dhaawaca xalay iyo habeen hore ilaa shalay aroor ilaa xalay dhibaato ka socotay magaalada Diridhabe dibta magaalada Diridhabe ka socotana waxa weeyaan waa ciidanka booliiska Diridhabe ciidanka booliiska Diridhabe ayaa dibta haya waxa weeye deegaankii Soomaaliyeed ee city ahaa waxa magaalooyin la isku hayo cadaytu culufiye galbool halka iska dhig deegaankii Soomaaliyeed ee city ahaa afar baa soo weerartay liyu booliiska afarta maalin kasta soo weeraro oo dad ku laaya 120 bay saro dhaafeen 3 bilood waxa weeye dawlad deegaanka Soomaalida waxaan filaynay in arinta ay jawaab dhaba ka bixiyaan kamayna bixideen dawlad deegaanka Soomaalidu way siqirtay ummadooda la laynayo ay hore u sheegeen ay yiraahdeen annagu 5 mitir oo dhul Soomaaliyeed ay leedahay oo golaan mayna cid kale inay qaadato ay yiraahdeen way beeneeyeen maanta dawlad deegaanka Soomaalidu dibta dadka ku habsatay ay iyagu mas'uuliyadda ka yihiin mas'uuliyadoodii way qaadi kari waayeen Soomaali waxaan kolka ka codsanaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo walaalaha iyaga aan bahdanahay waxaan ka codsanaynaa in dadka la dhibayo taageero loo muujiyo midda labaad walaalaha iyaga aan bahdanahay iyo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa war dawladdan way siqirtay waxba ma tarayso itaalna male waxbana ma qaban karto magac dawladeed bay sidaatay ma difaaci karto Soomaali de waxa weeyaan inaan oran hanridne anu ma oranayo hanridno waxaan kala daadina ma oranayo waxaan oranayaa war bal hangarab siino oo handiri galino bal inay in yar u wax qabtaan handiri galino dabahaan waxa weeye xilliga runta laga hadlo dibtii Soomaali ku habsatay dilkii dhicii boobkii uu Cabdiilay geysanayay waxay ahayd golihii badbaadada Soomaaliyeed baa ka dhiidhiyay bay ahayd golihii badbaadada Soomaaliyeed baa riday de golihii badbaadada Soomaaliyeed maanta rag baa daaqadaha ka soo galay oo meeshii maamulkii qabsaday de ha qabsadaan haddana waxaan nidhi war Soomaali way daashay uma haddana oran mayno kuwanina ma matalayaan oo dagaalan ku qaadno oo aan iska ridno maan oranne waxaan nidhi han taageerno waanan taageersanahay se waxba way qaban kari laayihiin wa iltaal darra haysa ma aragtay Oromo waxay go'aansatay Diridhabe inay xoog ku qabsato waa dawladdii Oromada waxa go'aansatay maaha sheeko lama hadli karaan ma oran karaan Oromay ka joogsada afari waxay go'aansatay deegaankii Soomaalida inay qaadato way joojin kari waayeen maanta liyu booliis baan leenahay liyu booliiskeenu itaal buu leeyahay karti buu leeyahay de waxay ahayd liyu booliiska in la diro
oo la daafaco xuduudda Soomaaliyeed xuduuddii Soomaaliyeed kuwani inay daafacaan ma rabaan kursigooda inay daafacaan bay meesha u fadhiyaan waxaa kolka aan leeyahay Soomaaliya waxaan leeyahay waa niman kursi u fadhiya iyo hanti bal kursiga iyo hantidana aan u dayno bal han dhiiri gelino inay in yar oo Soomaalinimo ay muujiyaan oo dadka difaacaan iyagu xil ka saaran yahay dadka inay difaacaan walaalaha iyaga oo nala waxaan leeyahay walaalaha iyaga oo nala waxaan leeyahay inagu bahwadaag baan nahay waxaan bahwadaag ku noqonay Soomaalinimo ku noqonay de Soomaalinimada aan bahwadaagda ku noqonay si adag hanu muujino idinka laf si adag hanu muujino idinka laftarkiina waxaan iniga baahan yahay dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku habsatay in aad meel kasta kaga dhawaaqdaan oo kaga hadashaan shacabkana waxa loo baahan yahay inay mudaharaad muujiyaan maaha kursi urban baan oo la isku haysto ururkan lagu leeyahay shacabku kolkoorna Tigray baa sameeyay iminkana orama faraha ku haysa waxaan leenahay maaha urur inagu aan leenahay maaha annagu ururada maanta aan leenahay waa ONLF waa sarda waa ururada u soo halgamay ummadooda kolka waxa weeye walaalaha iyaga ONLF idinkana waxaan niga saaran xil weyn baa niga saaran xilkiina qaata waxa la dili waxa la dhici waa Soomaali magaalada Soomaaliyeed waa magaalo Soomaaliyeed oo dil dhaba leeyahay dil dhabe oromana khalad weyn bay ku jirtaa oromo waxaan halkan maanta uga soo jeedinayaa oo leeyahay waar dad islaam oo walaalaan nahay waaranagu dagaal ma rabno waaranagu xumaan ma rabno waaranagu dad isdildila oo dhibaato inay sii socoto ma rabno war dad walaalaan nahay han heshiino oo inagoo heshiisa han wax wada qabsano han isgarab siino isbeddelka Etoobiyana han ma aragtay inagoo Oromiya Soomaali ah han gacmaha ku qabanaan leeyahay xilliga jabhadaha meesha fadhiya nimanka kale meesha jooga waxaan anigu hadalkayga dheerayn maayo waxaan ku soo koobayaa maanta waxa weeye waa maalin weyn walaalahayo ma aragtay ONLF ururka Jooxa iyo dhalinyarta Jooxa ha guulaystaan midnimada Soomaali ha adkaato ururka saqiirayna gacan la siiyo uu saqiiraya gacan siino lacagta kursigana ha u daynay gacan siino bal salaam calaykum